haatana gobolka bari ee Soomaaliya saddex dhalinyaro ah oo kamid ahaa 5 qof oo muddo 6 maalmood ka hor ay gaari kala degeen xubno ka tirsan ururka Daacish garabkiisa oo hogaamiye Cabdiqaadir Muumin kuwaas oo ku sugan buurleyda degmada Qandala ayaa galinkii dambe xalay waxa madaxooda la soo dhigay tuulada Karin oo 53 kiiloomitir u jirta degmada Qandala dhalinyarada dhinaca kalena waxa wali la yahay 2 nin oo ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo kamid ahaa dadkii la afduubtay wariyaha VOAda magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay abaanduulaha ciidamada daraawiishta Puntland General Saciid Maxamed Salaad Gorayaul arrintaas waa la dibisha daliilada takeeri gaari ka baxay magaalada Qandala oo u socday Boosaaso ayay dhexda u galeen waxay kala hareen 5 qof oo shacab ah shantii waa ka haysteen xalayto oo ahayd bishii ay ahayd kow ayay 3 ka mid ah dileen madaxyadiina waxay keeneen Karin Qandala way keeneen 3 shacab ah oo dhalinyaro ah labana meelay jaan ay dhibriga loo yaqaano meelay joogaan loo yaqaano shanta saasay ku dhantay waa sida faado meeshan waxay jirtaa Karin Qandala 53 kiiloomitir General halka la soo dhigay madaxyada dadka ee go'an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland waa goobihii aan ku dagaalamay Karin Qandala la yiraahdo waa meelaha ku jabinay weeye oo ka baxsanay marka halkaas iyada ah waxa hadda ciidamada joogo ciidankii ugu dhanyahay meesha aad Qandala laakiinse insha Allah rogaal ciidan sameeyna si degdegna meesha uga saarina insha Allah anagoo isku duuban shacabka iyo deegaanka iyo dawladda iyo ciidanka Puntland hawshaas iyada waxaan ballan qaadana inaanu nimanka si fiican meesha uga saaro kana qaadayno kala burburino waxa la sheegay in gaariga ay saarayeen qaar ka tirsan ciidamada Puntland iyaga sidee uga baxsadeen ragaas markii ay gaariga qabsadeen 9 qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawiishta ku jiro ciidanka daraawiishta saarana toddoba ahaayeen toddobadooda ilaahay waa ka fakadeen gacmo lugooda uga fakadeen lugooda kadacdi waa meelaha soo ururnay halka wax ka dhaceen xalay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada Puntland wali ma soo gaareen wali ma gaarin laakiin hadda aan ku noqonayna wali ma gaarin waxay noo jirtaa inta ka 3 kiiloomitir buura ah waxa la sheegayaa madaxyada dadka in lagu soo diray magacyo iyo qoraallo ah inaan la aasin arrinka maxaa ka jira waa shay loo soo sheegeen dad wala magaciisa ku soo xireen baa la yiri dadka waxay ilaahay dadkii ma askasta laakiin anagu meesha ma joogno dadkii shacabka waxay noo sheegeen in la keenay meesha shacabka ku xiran keenay dadkii meesha joogay asan waxay ka baqaan waa madaxyo wixii kale meelay geeyeen loo yaqaan General iminka waxaad ku sugan tahay magaalada Qandala oo 7 bisha aad dib u qabsateen goobihii aad ku dagaalanteen sanadkii dhamaaday bishii December 3 iyo 5 ayaa iminka la soo sheegayaa inay geeyeen madaxyada dadka qaar kamid ah marka maxay talaabadaasi kula muuqataa talaabada saxiix muuqataa in dadka ka xisaabeynayaan mana haysan karaan meesha awood ku haystaan male ciidankuna dhulkiisa oo horeynaya oo ku noqonayaan dhulkaas oo dhan xagee iminka ayay ku sugan yihiin wuxuu ku sugan yahay galadiid ku sugan yahay halkaas degan waa meel buuraleeyo buura dhaadheer leh oo ladiid baa la yiraahdaa ayay ku sugan yihiin inta badan marba meel bay tagaan laakiin halkaas ay ku sugan yihiin waxa la soo sheegayaa tuulada af urur ciidamada daraawiishta Puntland fariisil ay leeyihiin in lagu tuuray hoobiyaal dhaawacna uu ka soo gaaray qaar kamid ah ciidamada yaa ku tuuray seesa wuxuu gaaray ciidamada hadda waxa ciidamada waxa gaaray dhaawac ay leeyihiin bakhrkii markay ay ayaa qoladan muxuu ahaa xisada al-shabaab ay ku soo yeereen hoobiyaashaas oo dhan lahaayeen inay muxuu ahaa ciidanka ku laayaan laakiin nasiib wanaag lixu dhaawac fudud weeye ciidankuna uu diyaar garoobay mar dambe ma dhici doonto barooda ilaaladay fuulay mar dambe inay ku socdaan waa ogeeyna yaantii hore dagaalkii hore dhowr iyo 20 baa ka dhintay al-shabaab kaasi wuxuu ahaa General Gorayaul waa General Saciid Maxamed Salaad oo u waramayay wariyaha VOAda Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac